in dawladda lala shaqeeyo waa muhiim nin walba muddada uu joogo Soomaalinimadii shalay annaga ninkan baarlamaannimo ku dooranay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa igu ceeb shalay ninkan aniga aan ku doortay si kalsooni ah wax ummadan Soomaaliyeed wax u dhimayo haddaan hayo oo khiyaano qaran ah inaan ummadda ka hor leexin waa nagu waajib ah laakiin anaan nacay xasa cali khayr annaga siin kalsooni xukuumaddiisa iyo barnaamijkeeda haddii wax wadanka wax u dhimayo oo ay caddahay miiska hana loo soo saaro annaga kalsoonidii shalay siin kala noqonayno laakiin anaan nacay wax shaqeynayno daayera hadda ka hor la tababaraya la yiri nina wuxuu u tababartay inuu dukaankiisi iyo xoolihiisi oo dhanbo inuu ku aamino daanyarkaas inuu u gado ama uu ilaaliyo maalintii dambe xariif aad u weyn oo aqli badan ayaa wuxuu ogaaday daanyarkan sida loo tababaray inay wax ka dhiman yihiin bas daanyarkii wax allaala wuxuu qofku soo galo uu sameynaa waa sameynaa daanyarkii uu soo istaagay wuxuu yiri sidaan gacanta u ruuxay daanyarkiina gacanta u taagay asagana waa ruuxay markii dambe madaxu salaaxday aw tuuk aw daanyer asagana madaxu salaaxay markii dambe waa dhool caday oo yiri asagana aw daanyeri oo yiri kan wuxuu yiri markan waa la siri karaa waa u soo dhawaaday waa soo galay dhowr daaqadood oo dhar iyo wixii meesha yaalay uu qaatay waa baxay daanyerkii shib waa fadhiyaa meesha kii dukaanka lahaa yimid wuxuu arkay dukaankii wax ay ka maqan yihiin daanyerkii oo sanadkan dhan uu tababaray wax qabadkiisii sida uu waxa ay ku dhaceen ayuu aad maartay runtii u dhaliilay wuxuu fikri wuxuu yiri dhowrkan waxba ka dhignaa tijaabadii uu ku celiyay kaliya in wixii asaga uu sida uu dhahay uu jilaayay inuu jilaay ayuu ogaaday farsamada marka ninkaas sidoo wax ugu bedelo daanyerkii wuxuu yiri sidaan sidii tuuga uu yiri saas uu yiri sidaan markii uu yiri haddana waa qoslay waa la qoslay waa xoqday waa la xoqday alloore marka wuxuu yiri tuugiya idinka hal dhaafay markuu alaabta qaadanay ayaa wuxuu yiri sidaan uu yiri daanyerkii asigana sidaan uu ka daba yiri aw daanyer intuu sidaan uu leeyahay ninkan alaabta qaatay magtahay xariifkan markii uu fiirinayay meeshuu ka fashilmay ayaa wuxuu yiri indhihi sidaan daanyerkii sidaan uu yiri markaas uu dharbax ku shubay markaas uu daanyerkii sidaan uu yiri haddana waa uu celisaan uu yiri markaas uu daanyerkii haddana sidaan uu qabsaday waa ugu dhajiyay markii dambe daanyerkii indhuu furay saan uu yiri gacantu ka mayr hadda saan ku iraado fiir saan ma kartay daanyerkii si fiican uu qaatay aw tuug wuxuu yiri kan shalaad sirtay maanta halihii dhima soo dhamaystiro sheekada sidii u jilay markii dambe wuxuu yiri saan markuu saan yiri shalay wuxuu lahaa sidii uu dhigi doona saan waa qaadan doonta markuu saan yiri aw daanyer yiri saan hadda meeshan sheekadii daanyerka waay dadkii saan markay yiraahdaan saan laga daba dhigi jiray wax daldalan jiray waxaan u malaynayaa marka inay kor iman doonto saan ahey umalayn maayo allaqalla Soomaaliya maanta kan ugu maskax hoosay wax buu gartay waxyaabihii la soo marayna waxba laga qaatay marka in nin intuu iska soo istaago sida lagu bartay siyaasi oo uu ballan qaadiyo cadaalad baan samaynahayaa ceelkan ma artay qodahayaa webigan macaanaynahayaa dadka Soomaaliyeed dhan baan isu keenahayaa wax kasto idinka aad u baahantiin man idin siinahayaa Soomaalida caruurteedo dhan baan wax barahayaa saaxiibow sheekadan tii daanyerka waa laga yimid hal mar dad aad sirtay mar kale ha sugin waxay dadka ku qiimeyn doonaan qof kasto Soomaaliyeed waxa uu sinaanta iyo cadaaladda iyo midnimada uu ka qabtay hadduu biograph hore uu leeyahay ee taariikh la raaco dadka marka talada hore u soo qabtayo liiskaaga si fiican iskaga baar marka adiga aad iska heshid cadaalad wax un dadka ku sheegatid mujtamaca hore imaw markaas ka bacdi weydiiso laakiin nin kaarkiisa uu gubtay uu madow yahay oo cadaalad dara ku caanbaxay qabyaalad ku caanbaxay kala qaybin ku caanbaxay iimaanka Allah uu geliyo
ummadan uma baahna siyaasi beenlow ah oo ummadda wax uu sheegayo oo ilaahay ku diinta noogu sheegay yaquluna bi afwaahihim ma laysa fi qulubihim layriya waxay afkooda ka sheegayaan waxaan qalbigooda ku jirin ama ninkii shaacirka ah uu yiri yu'tika min taraf lisani halawa afka markuu ka hadlayo wuxuu ku siinayaa malab ويروغك كما يروغ الثعلب يا دبن دابيada la soo cadmada saliida wacdi oo kale dhaq ya markuu munaafkiisa uu gaaro ya sheekhu mari daga Allah dago ya لا يلدغ المؤمن مرتين من جحر واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن هل قد لما جر لغما wada qaniin dadka qaarna waa idin baranay xisbigiin iska wata waxa rabtaan sheega magaca rabtiin ee fiican u soo bixiya كل حزب بما لديه فرحون يا إن دولة دلالة شقي ومهم نقول بمدة وجوه الصومالي نمدي شلي أنا قاعد نكان برلمان نمكو دورني محمد عبد الله فرماجو وأي وعب شلي نكان أنا قاعد كود دورتي سكال سوني wax ummadan Soomaaliyeed wax u dhimayo haddaan hayo oo khiyaano qaran ah inaan ummadda ka hor leexin waa nagu waajib ah laakiin anaan nacay xasa cali khayr anaga siin kalsooni xukuumaddiisa iyo barnaamijkeeda haddii wax wadanka wax u dhimayo oo ay caddahay miiska hana loo soo saaro anaga kalsoonidii shalay siin kala noqonayno laakiin anaan nacay wax shaqeynayno gabadheena qadra هوذا بعدن جدكو هر نمبا حقيسي واهليه marka waxa waaye anigana inaad itiraahdid igu cambaaraysid wuxuu la joogaa ama uu la safan yahay ama ayaga ay doonaynin inay meesha ka tagaan adigoo wax sabab ah oo aan ku qanci karnada ii sheegaynin maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan cali khayre adigana uhuru kenyatta inaad ag fariisatid isku bahlisid ya annagay wax naga dhaxeeyaan Soomaali bay maartay ayay wax u yihiin Soomaali baan wax siisay Soomaali baan wax ka qaadan karto laakiin waa nasiib darro in siyaasiyiinteena lagu xanto qaarkood inay ka laabtaan meel ayagan aan mudnayn sharaftii Soomaaliyeedna waliba xilli aan is hayno meelaha qaarkood ay la tagaayo nin gabartaada oo adiga aad la rabtid oo diidayo oo xaaskaagaan rabaa ku dhahayo afaad kula sheekaysanaysid I don't know ma garanay aniga ma gartay annaga xiriir sokeeye iyo mid daris iyo mid walaalnimo Soomaali intaba diyaaray u tahay laakiin ninkii shaacirka ahaa wuxuu yiri wali watanun alaytu an la bi'ahu wadan baan leeyahay oo aan u dhaartay inaanan iibsanin wala ara ghayri lahu dahru malika mana ku arki karo qofaan isaga dalka iyo dadka aniga aan ka dhashay ama aan dalkaas aan ka dhalan marka annaga tabarta haday maanta nagu yartahay Soomaaliya la iska ogaado qaansada la dibacday maahane ma aysan jabin قرت قانصر ما قرتي انت اللي تاغاي اللي فلارغمو اي كدمنتahay ما قرتي dadkana waa yaqaanaan sida qaansadana loo markale ma artay oo loo taago falaartana sida loo rido waa yaqaanaan cadawguna intaas ha ogaado